ujeedada munaasabadan ayaa iskugu jirtay taageerada xukuumadda cusub ee Soomaaliya iyo waliba soo dhaweynta garyaqaan Maxamed Khaliif Faarax oo hore uga mid ahaa qurbo-joogta reer UK asagoo bulshada UK kaalin weyn ugu jiray maadaama uu ka caawin jiray arrimaha ku saabsan dhinaca sharciyada wadankan UK. garyaqaan Maxamed Khaliif ayaa hadda la taliyaha dhinaca sharciga ee Ra'iisul Wasaare Cabdulle Sheekh Axmed horena uu ahaa la taliyaha dhinaca sharciga ee Ra'iisul Wasaare xilka ka digay Dr. Saacid. kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee jaaliyadda London ayadoona ay kala war qaadanayeen garyaqaanka iyo jaaliyadda. kulanka ujeedada maantay caawan isugu nimid waxay tahay xafladda soo dhaweynta garyaqaanka Maxamed Khaliif Faarax Sadiq ahna la taliyaha Ra'iisul Wasaaraha dowladda Soomaaliya Maxamed Khaliif Faarax صديق إنه أها ننكي رنتي أصاب نقضي إن أنه ديجان كان إيست لندن اللي رهضو إلهي كسوكة قيبت هذا حق إميجريشن كا يو هوم أوفيس كا سيدي عن نظام كشريع وذا ودن كان اللوجو باهي عن أهل الهني وهنقوم هذا قينا ونمذني هاي رنتي إن أنه متقنا عاو كسر وين حفلة تن وحرجيني السيدة لقوية قانون ده عدة يكرتها يو أقونتا iyo dhaqanka iyo barashada xiriirka caalamiga ah inaad uga faa'iideyn doonto kuwaas ayaan rajaynayaa waa Soomaaliya nin alla iyo ninkii dhahaya Soomaaliya dawla kama jirto ee beenta sheegay ee TV-ga ka hadlaaya ee fadhi dirirka ku hadlaaya ee meelaha ka hadlaaya ee guryaha ka hadlaaya been bow sheegay waxa maxad weyn ama salaan aan u gudbinayna baarlamaanka Soomaaliyeed oo runtii si xilqasi ah ay u ansixiyay prime ministerka cusub ustaadkana waxaan u rajaynayaa insha Allah shaqada oo noo qabto halkaasi inaan annagana ka daba tagno insha Allah oo aan la shaqeyno meesha Soomaaliya. garyaqaan Maxamed Khaliif ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee dalka oo marayo iyo waxyaabihii uu ku soo arkay inta uu ku sugnaa dalka. waxaan idin xusuusinayaa oo jeclaan lahaa inaan idin wargeliyo maadaama aan dalka ka imid rijo aad u weyn oo wanaagsan baa jirta dalka mustaqbalku ma madooba mustaqbalku waa iftiinsan yahay mustaqbalku nuur buu leeyahay arrintu marka xagga amniga way soo raynaya waa wanaagsan yahay runtii xagga bulshada wax badan baa laga qabtay indhaha uu kor markay ka qabtaan magaalada waxaad leedahay Yurub magaaladeed ka joogta iyo America runta markaan ku sheego magaalada Muqdisho dhinaca infrastructure-ka haday airport tahay haday deked tahay haday magaalada dhexdeeda tahay wax weyn baa laga qabtay ama laga wadaa waqtigan xaadirka dadka Soomaaliyeed ee annaga qurbi joogta ah ee halkan jooga maxaa u furan waxaan leeyahay fursad xoog badan baa u furan leeyin kamana maalmo aqoon ahaan markii loo eego dadkii fursadda helay waa idinka ilbaxnimo idinka helay adduunka iyo wax ka kororsigiisa iyo habka loo dhaqmaa waa taqaaneen tan iyo markii ka baxday dawladda ku-meelgaarka ee Soomaaliya sanadkii 2012 ayaa qurbo-joogta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxay bilaabeen si dib ay ugu laaban dalka si ay u maalgashtaan halkaasi ayadoona garyaqaan Maxamed Khaliif oo kamid ahaa ama oo kamid yahay qurbo-joogta farkutiriska ah oo dalka dib ugu laabtay si oo halkaasi aqoontiisa ugu beeriyo dalkana uu samata bixiyo. Cabdirashiid Maxamed Nuur Cabdirashka Universal TV bariga London.